هدي أدي شهوة كودالي شهوة هدو أدو كودالي أنا أدركها هاي مركي عن دقيستي أريضة ذي مركي عن أركي إن ده هذا إن ده يجوا حكوسو بوسنتيلين إن ده يجوا حكوسو بوسنتيلين شهوة بسور استاجي شهوة بسور استاجي شهوة بسور استاجي أرتدي بسور استاجي وحاني السيرة معي جوكو قبطان ركب هذا نسكت ده إسناكم ولا الكاه يسوقوا لي منين شهوة مقال ضمبو أدا صوت ضبطه براب بالشدة الصفر يستو إن ده لما يكون سدح يكون عيا سدح السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسلامتني لتيم مسكستو مغلسان مالكستو أي قدام لساني جوا ألفنا صعدال ألقى قدام لسان برتا يوتيوب كلها صعدال جنال إيوه برتا فيسبوك كلنا هالست فوتوغراف سو هذا مركوات مرلاد مرسدحات عاوا ما هيدي ودنا عاوا waxa idin wadnaa muuqaal ka duwan muuqaalkii hore waliba xasaanaysan horta ugu horeyn inta aan muuqaalka aan guda gelin waxaan idin xasuusinayaa boqolkiiba dadka YouTube-ka ku cusub oo awal ku ah inay subscribe ay saaraan marka labaad haddii aan u gudo galo muuqaalkayga muuqaalkan caawa waa uu ku duwan muuqaalka hore waana ka xasaasiyad badan yahay maalmahan waxaan isheynay nin yiraahdo shahwah oo aad ka warqabtaan muuqaalo fara badan shahwah waa ku canaantay ilaa hadeertaane waa ku canaan qaada leeyahay canaankiisu koow hortaro mar walbo markii aan halkan soo fadhiisto waxaa idin xasuusiyaa aniga in ay ila shaqeeyaan ruuxaamo iyo duulan inay ila shaqeeyaan markiis idin xasuusiyaa dadaal fara badan juhdi fara badan kadib waxa ay noo suurta gashay aniga iyo ruuxaantayda in aan ku bixino qoyska shahwah in aan ku bixino dadaal iyo juhdi in aan ku bixino ugu dambeyn juhdi fara badan dadaal fara badan kadib waxaan la kulmay qoyska shahwah gabadhan aad arkaysaan oo dhinacayga fadhido waa gabadhii uu dhalay shahwah waa ilmihiisa gabadh ugu weyn curudda waay waqti fara badan juhdi fara badan xalay indhahan kuwiga isma geyn xalay oo dhan indhahan kuwiga isma geyn xalay oo dhan waxaa raadinayay shahwah qoyskiisa familkiisa meeshuu ka soo jeedo heebtuu yahay meeshuu ku dhisay meeshuu ku soo barbaaray asaga dhan xogtiisa kooban maqal ahaan waxaan u haystay shahwah asaga isu gargaarayay inuu shoogo isbaaro ku taala shir kale laakiin waxaa la jirto inuu asaga dayacay familkiisii inuu dayacay heerkiisii inuu burburiyey heerkiisii shahwah aqoontiisu way ugu gaabanta boqolkiiba waxaad ku barateen social media aniga markii aan la kulmay gabadhan masaakiinta waan qiiroomay boqolkiiba waan xanaaqay waxaan u xanaaqay hal geela sidii u xanaaqayd ka daran baa u xanaaqay boqolkiiba shahwah wuxuu geliyay xasaaniyad fara badan juhdi fara badan waqti fara badan ugu dambeyn gabadhan ayaa waxaan ku helay si aanan macquul ahayn haddii aan kulaaday waxaan leeyahay you respect me all my people waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka siinayaane gabadhii uu dhalay shahwah adigoo ku bilaabayo magacaaga waxaana siisaa xog kaamil ah xogtaasoo ah mid xaqiiq ah sax ah wixii adiga iyo aabahaaga iyo familkaaga ku soco waxaan aad fadhiyo waa shahwah gabadhiisa maanta muxuu ahaatay maanta meesha waxa isoo fadhiisay waa muxuu ahaatay aabahe muxuu ahaatay kulli isiga way dhalay waxaan ahaanay 3 gabdhood laba iga yar aniga oo weyn ما شاء الله كل يقفكاس وقف أبهنا مفهمتي طبعا إيش نصنع كور يودن بيسي waxaan ku weydiinayaa saabiriin adiga iyo aabahaga meeqa ismogtihiin
goormen kugu dambeysay muddo 15 sano ka hor ay ugu dambeysay 15 sano waa muddo aad u tiro badan 15 sano okay hadii 15 sano ay kugu dambeysay aabahaaga ma wada xiriiri jirteen oo ma wada hadi jirteen oo dad wadacanaha wada xiriiro oo dadka iyagu kala maqan ee haddana ay wada xiriiraan waxba is dhaafsadaan ma wada xiriiri jirteen oo wax misal jirteen aabe ma wada hal jirin oo macnaha qofkaas waa qof muxuu oo daroogista waaye waa qof naftiisa aan siga meel aan ku ogeyn waa qof markastaba balad isticmaalo waaye naftiisa meel ku ugu faantay qofkaas aniga isaga ma wada xiriiri jirinba horta aad ugu ma boqolkiiba boqol maadaama oo aabba oo idin diiriyay oo idinka tagay adigu idinkuna aad diireedeen sidee idin ku soo tagashay inaad soo kobacdaan ama macnaha aad noqotaan dad macnaha saacadan alxamdulillah shukran dadkooda dhaxgalo والله هذا السعودال ما شاء الله كل يدويدي ويد متي الله ونحريستو ilma yarka markii hooy dhimatay ana tafaariqaadina macna koriyo anta kurfaadi karo aan kurfaada soo koriyo maadaama aab xun dhalaaniga aabihina macna iska tagay oo qof muxuu ahaatay daroogista maskaxdiisa in joogin oo noqday alxamdulillah la shukriyaana soo baxay ilmihiina ana hadda haay gacanta ku haayo wallahi ma sha Allah hadda xudaba ii koreen sa كسام waxaan ku weydiinaa hooyo iyo aabe maxay ku kala tageen والله hooyo aabe waxay ku kala tageen waxa weey ana dhar male hooyo la hadashay wax u sheegtay wax la hadashay hooyo wax u sheegtay kuli muxuu ahaatay qofkaas waa qof macnaha uu siiyay muxuu ahaatay balwadi iyo siibay kuli waruu ka diiday dhar ahaanta hooyo qof ay xanuunsatay macnaha qof ku tacaalaysa ma jirin qof wax qodaaweynaysa ma jirin muxuu ahaatay isigana duurkiisa ka baxay ma sha Allah hooyina way dhimatay kule isigana waa farahan ka qaadnaba faantay maanta wallahi inaan soo fadhiistay maribin laakiin dani duruufa meesha aan soo fadhiistay faantay inaan aan sheego aabahay maatadiisa anagana waan kula qiiroonaa oo anaga nafirkeena waan ka xunnaa boqolkiiba boqol oo anaga kuma faraxsanin laakiin adduunyanaha waxa fiican waxa saxda ah in la cadeeyo oo waxa saxda ah macnaha in la tusiyo oo wixii qaldan leh laga reebo su'aasha ugu dambaysa ku weydiinaa hada aabaha shalay markii uu idinka tagayay wuxuu iska ahaa qof macnaha iska caadiya laakiin hadirtaan waa nin magac leh la yaqaano adduunyada la yaqaano oo dad kale ay wada garanayaan waxaan ku weydiinaa hadda aabaha wuu ku daawanayaa wuxuu ku jira dadka ku daawanaya ku jira aabaha maxaa fariina oo u diri leed aabaha shahwa maxaa fariina oo u diri leed aabe waxaan dilahaa ilaahay tahsuuhnin shi wadada toosan Allah ku soo rido amiin ilaahay maanta amiin kulli ana xumaatada uu geystano dareemi karaa waan ka kornaa alxamdulillah shukri alxamdulillah صح saabiriin waxa ku maasan tahay sharafka ay sharaftay qiimaha ay qiimeysay waxa ku sharfan tahay sida aniga ay sharaftay aadina ku sharfantaa boqolkiiba boqol aad iyo aad qof walaala aad tahay oo waqti juhd ku bixiyay halkan aan iyaga ku keenay aabaha inuu macnaha shahwa yahay dadku inay u cadeyso shahwa ma ku dhalay gabadhiisa ahay urada ay wadiba okay waxa ku leeyahay hadii adiga shahwa ku dhalay shahwa hadii adiga ku dhalay anina adeerka ahay oo ku salaama qarbana ku rajeyna waqtiga ku wacnaado waan idin soo booqana biir insha Allah sida aad wada arkayseen gabadha halkan fadhiday waxay ahayd gabadhii oo dhalay curadii shahwa gabadhii markii aan dhageystay ereyadeedii markii aan arkay indhaheeda indhahayga waxa ku soo buuxsantay ilin indhahayga waxa ku soo buuxsantay ilin shahwa baa soo istaagay shahwa baa soo istaagay horteeda buu soo istaagay waxaan isira maciij ku qabataa dhakab hadda iska daasna kan waa walaalkaahe isu kugu dhimanine waxaan ku leeyahay shahwa laga bilaabo maanta anigi adiga waxaynu nahay dad iyo gas meeshiheeno anigi adiga 40 sano dagaalkeena ma dhamaay boqolkiiba
waa si soconaya ilaa xad maxaa yeelay waxaa tahay nin reerkiisii dayacay waxaa tahay nin reerkiisii dayacay oo reerkiisii burburiyey waxaa tahay nin reerkiisii ku dheelay waxaa tahay nin reerkiisii meel uga dhacay waxaa tahay nin ilmihiisii ka tagay waxaa ii caddaatay inuu yahay oo daroogiystaa dayacay ilmihiisa 100% dayacay familkiisii naagtiisii ay ku kala tageen darooga darteed isbaara darteed ay ku kala tageen 100% aniga idooro amba qashinkan iyo calaqan iyo kooladan iyo waxaan iyo isbaaradan waxa ku jirto dooro markaas wuxuu ku yiraahdaa ayaan dooranaya ku marmani ayaan dooranaya wuxuu ku tiri ilmaan jisada oo luka buuxan oo sidaane xagee ugu tagana wuxuu ku yiraahdaa adaa lagu yiraahdaa shaqo kuma lihi gabadhi warkeed markaa dhageystay indhaha gelin baa ku soo fadhiisatay waxaa iga daran dowladda ingiriiska markii aan la kulmay la fariistay wada sheekaysi xasaasiyiina dhex mareen aan kala hadlay dhibaatada uu ku hayo shahwa dadka Soomaaliyeed teleefankeyga nasan waay waxa soo wacayo boqortooyada ingiriiska dadka ugu sastareey baa soo wacayo waa ka qabi waay teleefankeyga sidii ugu soo daalayeen dadka ingiriiska sidii teleefankeyga ugu soo daalayeen waa ka qabi waay 100% waa ku ugu daaleen waan jiif waa hurdayay anuguna markaa hurdada teleefon ma qabtaba waxaan idin leeyahay 100% ninkaas ka socdaal ahaan waxaa go'aansaday qoyska shahwa in aniga aan kafaala qaado waxaan go'aansaday qoyska shahwa in aan mas'uuliyadooda aniga aan qaado in aan aniga masruufkooda aan siiyo aan bixiyo aniga cid aan ugu reeyay 100% reewasa u kaashaninin reefas u kaashaninin islaam jadu kaashin ana kaashanaa ma jirto 100% in aan qoyskaas uu dayacay uu ka tagay uu ka doortay daroogi calaqi baqtiis isbaar uu ka doortay in aan aniga hadda gacan bir ah ku qoto 100% naagana ka ribin oo hooyada ma joogto waxaan u awaal sheegnaa ma jirto waxaan u garaabayaa muslim darteed dagaalka shahwa ani adiga naga dhaxeeyo ani adoo naga dhaxeeya familkaagi shaqa kuma la 100% famil ada adiga kula dagaashana familka lama dagaashana 100% waan saacidaya lacagtan ku shubaya 100% korkoodan ku dadalaya adiguna waan ku bahdilaa 100% muuqaalkii meesha uu yahay hadaa soo hadal shahwa muuqaal damada soo dubto indhaha shahwa muuqaal dambo hadaa soo dubto oo baraha bulshada aad soo fadhiisato indhaha lama ku yiin 3 ku naqayaan 3 goodbye